بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي لبعض اسكو دايد اللي دوني إن لغو حضو ميدك نبي الله محمد وحباشي سلو صوفقو اسكو دايجي كوبات أينو هلكن قيبتي هريدين كسو قد بني قيبت لبعض كسو دو هذا اسكو دايجي لبعض اللي قد دوني إن لغو فقو قبري نبي الله محمد نبتقلي نحريسي كوركي سها أهاتي إيا سيدي معجي سدا أهيد إلهي سبحانه وتعالى وبدباديه sida aad la socotaan waxaan qaybtii hore ee qormadan ku soo qaadanay isku daygii koowaad ku soo dhawaada qaybta labaad iyo isku daygii labaad saddexaad iyo afraad ee la doonayay in lagu xado meydka nabiga isla khaliifkii Ubaydi ayuu waqtigiisii dhacay falka isku dayga in qabriga nabiga inta la faqo meydkiisa barakaysan ee daahirka ah la xado al-Haakim bin Ubaydillah waxa uu qorsheeyay koox shufta ah oo hanaan qorshaysan u diyaariya qaabka ugu macquulsan ee ay ugu suurta gali karto in ay meydka nabi maxamed kula soo baxaan ninkii u xil saarnaa fulinta qorshahani waxa uu goor habeenimo ah soo galay magaalada barakaysan ee Madiina al-Munawwara muddo dhowr maalmood ah markii uu joogay waxa uu diyaariyay qorshihii uu falkan guracan ku suurta galin lahaa laba nin oo kale iyo isagu waxa ay hoy ka dhigteen mid ka mid ah guryihii u dhawaa masaajidka nabiga kadib dad deganaa guryaha ugu dhow masaajidka ay u xil saareen in ay guriga uu ku dhex aasan yahay nabigu kan ku xiga in ay galaan kadibna halkaas god weyn oo qarsoodi ah ka qodaan si ay xagga hoose ee dhinaca ah xabaasha nabiga uga yimaadaan qisada hadaba mucjisada ahi waxay ahayd markii ay raggaasi kala bar qodeen godkii ay qodayeen in ay maqleen dhawaaq argagax leh oo ku qaylinaya meydka nabigiina badbaadiya iyo sidoo kale iftiin aanay indhuhu xamili karin oo ka soo baxaya godkii ay bilaabeen inay qodaan oo ku soo docfaruuraan kan qabriga nabiga dhawaaqaasi markii ay maqleen dadkii masaajidka ku sugnaa iyo dadkii kaleba kadib waxa ay baadheen gurigii godka laga qodayay halkaasi oo saddexdii nin ay ugu tageen kadibna halkaas ku dileen sidaasna uu ku badbaaday meydkii nabiyullaahi maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waa isku daygii labaad ee fashilmay intaas haddii aynu kaga soo gudubno qisadaasi bal hadda haynu u gudubno isku dayga dhagartii saddexaad ee fashilantay waxay dhacday sanadkii 507 hijriyada islaamiga ah oo uu markaas muslimiinta hogaaminayay Sultan Nuruddin Zinki Allah u naxariisto inta aynaan isku daygan ka hadal aynu in yar ku hakanno taariikhda boqorkan muslimiinta u talin jiray intii u dhaxaysay 511 ilaa 569 hijriyada islaamiga ah oo ku beegmaysa 518 ilaa 574 tirsiga miilaadiga magaciisa saxda ahi waa Maxamuud bin Imaaduddin Zinki laakiin dadkii xilligiisii noolaa waxa ay aad u jeclaayeen in ay ugu yeedhaan magacyo badan oo ka turjumaya wanaagii hogaamintiisii iyo jacaylka ay u qabeen waxaa ka mid ah boqorkii cadaaliga ahaa u gargaarihii amiirka muuminiinta oo ay uga jeedaan in uu ku socday jidkii Umar ibn Khattab libaaxii islaamka iyo Nuruddin Zinki nuurkii islaamka halka dad aad u badanina ay jecel yihiin in ay ku sheegaan khaliifkii muslimiinta ee lixaad iyaga oo ka horreysiinaya afartii khaliif ee asxaabada ahaa Abu Bakar, Umar, Uthman iyo Ali iyo khaliifkii Umar bin Abdul Aziz iyo waliba kan aynu hadda ka waramayno oo ah Nuruddin Zinki bilowgii hadaba Nuruddin Zinki oo xukunka ka dhaxlay aabihii waxa uu haysan jiray magaalada Xalab ee dalka Suuriya laakiin waxa uu ku guuleystay in uu dawladdiisa ku fidiyo deegaano aad u ballaaran dhulka Shaam oo dhan ilaa dalka Masar waxaanu caan ku ahaa dagaalkii qaraadhaa ee uu ku qaaday macatableydii dhulka islaamka isu soo bahaystay waxaanu ka hor istaagay dhul ballaarsigii iyo dagaal diimeedkii ay wadeen sidoo kale Nuruddin Zinki waxa uu xukunka ka tuuray dawladdii Faatimiyiinta oo aynu hore u soo sheegnay in ay shiico xag jira ahayd dhulka Masar iyo gobolka Shaamna waxa uu dhidibada uga taagay madhabta sunniga dad badan ayaana aaminsan awoodii dawladdaas iyo dhulkii badnaa ee uu qabsaday Zinki in ay sabab u ahaayeen in Salaaxuddin al-Ayyubi uu gacanta ku dhigo magaalada barakaysan ee Qudus oo hore uga baxday gacanta muslimiinta Nuruddin Zinki waxa lagu xasuustaa horumarkii weynaa ee uu xilligiisii ka sameeyay dhinacyada waxbarashada iyo casriyeynta adeegyada caafimaadka sidee hadaba qisadani u dhacday amiirkii muslimiinta Nuruddin Zinki oo sida aynu hore u soo sheegnay ahaa amiir alla ka cabsi badan ayaa habeenada kamid ah ku riyooday nabiyullaahi maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee
oo inta uu farta ugu fiiqo laba nin oo cawlcawlan ku leh ii gurmo iga badbaadi labadaas. sida haddaba qisadu u dhacday, boqorkii isaga oo aad u naxsan ayaa uu hurdada ka booday, kuma uu noqon ee inta uu sare u kacay ayuu sunno tukaday, kadib hurdadii ayuu ku noqday. cajiib, mar labaad ayuu isla riyadii oo kale arkay, isaga oo yaaban ayuu hurdadii haddana ka kacay oo inta uu weysaystay uu tukaday oo uu dib haddana ugu noqday hurdadii. iyaba waa yaabe, isla mar saddexaad ayuu manaamkii arkay, laakiin markan inta uu sare kacay ayuu yidhi hurda iima taallo. khaliif nuuraddiin sinki waxa uu lahaa gacan yare wasiirkiisa koowaad ahaa oo ahaa nin aad ugu wanaagsan diinta. markiiba waxa uu u yeedhay wasiirkiisii koowaad, waxa uu uga warramay waxa ku dhacay si uu talo ugu bixiyo. wasiirka koowaad oo magiciisu ahaa jamaaluddiin almawsili ayaa isaga oo la yaaban boqorka waxa uu ku yidhi, oo markaa maxaa ku fadhiisiiyey? imika bax oo tag madiina, toos u tag madiina almunawara, cidna ha u sheegin waxa aad u socoto iyo waxa aad aragtay midna. nuuraddiin sinki taladii wasiirka koowaad ayuu qaatay oo isla habeenkiiba waxa uu u diyaargaroobay safar ku wajahan dhinaca iyo magaaladii madiina oo dowladdiisa hoos imanaysay wakhtigaas. waxaanu sii kaxaystay wasiirkiisii koowaad jamaaluddiin. sidii caadiga ahayd, dadkii reer madiina waxay isugu soo baxeen soo dhowaynta khaliifka iyaga oo aad ugu dhegtaagaya in ay ogaadaan bal waxa uu safarkiisani daaran yahay. waxaa la isugu soo ururay masaajidkii nebiga sala allahu calayhi wasallam oo uu boqorku ku soo degay. kadib waxaa hadal u kacay wasiirkii koowaad ee boqorka si uu dadka ugu sheego hadallo ay hore isaga iyo boqorku isla soo ogaayeen. waxaanu yidhi, suldaanku waxa uu madiine u yimid keliya booqasho uu ku soo siyaaranayo qabriga nebiga sala allahu calayhi wasallam. waxaa kale oo aan idiin sheegayaa in boqorku uu madiine u soo qaaday maal fara badan oo uu ugu tala galay in muslimiinta sadaqa loo siiyo. sidaas awgeed waxaa laydinka codsanayaa in aad soo qortaan magacyada dadka saboolka ah ee magaalada madiina jooga si maalkaas wax looga siiyo. dadkii iyaga oo faraxsan ayay dib ugu noqdeen guryahooda, waxaanay isugu soo abaabuleen in ay qoraan liisaska dadka baahan ee ka qaybgelaya maalka suldaanku u keenay. sida lagu yaqaano bani aadamka, marka sidan oo kale loo sheego in lacag iyo adduun la qaybinayo, qof kastaa waxa uu jecel yahay in uu ka qayb galo. sidaas oo kale ayaanay u dhacday arrinta reer madiine, oo waxaa isa soo qoray dhammaan qoysaskii ku noolaa magaaladan barakaysan oo doonaya in ay ka qayb qaataan xoolaha islaamka ee loo qaybinayo. dabcan waana sida ay doonayeen suldaan nuuraddiin sinki. maalin loo ballamay ayaa dadkii oo dhammi isugu yimaadeen si ay u soo qaataan xoolaha boqorku qaybinayo. xilligaas aad uma ay badnayn dadka madiina deegaanka ku ahaa. nuuraddiin sinki waxa uu soo fadhiistay goobtii lacagta lagu qaybinayey. wasiirkiina waxa uu bilaabay in dadkii oo safaf ugu jira uu u qaybiyo lacagta. ujeeddada nuuraddiin sinki u fadhiyey waxay ahayd bal in uu dadka ka dhex raadiyo labadii nin ee uu riyada ku arkay iyada oo uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam uga cabanayo, kuwaas oo uu si fiican wejiyadooda iyo muuqaalkooda u xusuusan yahay, maadaama oo 3 jeer oo kala duwan ay riyadiisa ku soo noqnoqdeen. dadkii liisaska ku qornaa waa loo wada qaybiyey maalkii, laakiin weli suldaan nuuraddiin sinki ma arkin labadii nin. isaga oo yaaban ayuu dadkii dib u weydiiyey, waar bal dib isu waraysta in ay jirto cid aan qaadan xoolahan la qaybinayo. waxay ugu jawaabeen maya ee waannu wada qaadannay. mar kale ayuu haddana ku celiyey, bal hadda aad uga fikira oo dib xusuustiinna ugu noqda. suldaan nuuraddiin sinki waxa uu doonayaa waa uu cad yahay oo waxa uu si fiican u garanayaa in labada nin ee hortaagani ay yihiin kuwii uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam manaamka ku tusay. sidaas awgeed hadallada ammaanta ah ee ay dadka reer madiine ka sheegayeen saamayn badan kuma ay yeelan, kamana ay duwin qorshihii uu ku socday ee ahaa in uu ka gungaadho labada nin iyo hawsha ay wadaan ee dhibaatada ku ah nebiyullaahi maxamed nabadgelyo naxariisii korkiisa ha ahaatee. labadii nin inta uu u yeedhay ayaa uu ka codsaday in ay kaxeeyaan oo guriga ay deggan yihiin ay geeyaan. sidii ayaana yeeleen, maadaama oo aanay diidi karin mar haddii gacanta lagu dhigay, islamarkaana dadkii reer madiine ay si fiican u garanayeen guriga ay deggan yihiin oo aanay guri kale tusi karin. suldaan nuuraddiin sinki markii uu galay qolkii ay labada nin degganaayeen waxa uu bilaabay in uu baadho. nasiib wanaag cabbaar yar kadib waxa uu kor u qaaday caw ama salli dhulka ku goglanayd, waxaana kaga soo baxay arrin naxdin iyo amakaa ku noqotay isaga iyo intii la socotayba, oo si fiican ugu dhammaystiray macnaha riyadii uu arkay. waa god afkii oo markii hoos loo raacay in yar u jira in uu ku baxo qolka caaisha, ilaahay raalli ha ka ahaadee, ee uu ku dhex yaallo qabriga nebigu sala allahu calayhi wasallam. nuuraddiin sinki oo aad u cadhaysan ayaa inta uu labadii nin xanuujiyey waxa uu ka dalbaday in ay runta uga sheegaan waxa ay yihiin iyo cidda soo diratay. markaasay u qirteen in ay yihiin 2 nin
oo diinta kiristaanka aaminsan. waxaana soo diray bay yidhaahdeen hogaamiyaashii kiristaanka ee dhulkayaga joogay. inta ay lacag aad u badanna siiyeen ayaanay nagu soo amreen in aanu soo xadno meydka nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. sidaas ay yidhaahdeen iyaga oo ka warramaya sidii ay godkan u qodi jireen iyo halka ay ciidda geyn jireenna waxay intaas ku sii dareen sidan: habeenkii ayaan qodi jirnay godka, labadayada mid kastaa waxa uu lahaa shandad maas ka samaysan oo u tolan qaabka labiska dadka reer maqrib. mid kastaa godka inta uu qodo ciidda ka soo baxda shandadiisa ayuu ku ururin jiray. kadib annaga oo iska dhiganay in aanu soo siyaaraynayno xabaalaha baqiic ayaanu shandadaha sii qaadan jirnay si aanu xabaalaha dhexdooda ciidda ugu soo shubno. sidaas ay yidhahdeen labadii nin. laakiin labadii nin waxa ay sheegeen in markii ay godka ku soo dhoweeyeen xabaasha nebiga ay la kulmeen arrin la yaab leh oo shaqadoodii hakisay. unkod iyo hillaac argagax badan oo aad moodo in iyaga ay u gollo yihiin ayaa si xidhiidh ah u dhacay. dhulkiina gariir weyn ayaa ay ka dareemeen ilaa ay gaadheen heer ay kaba baqaan in ay ku soo dhaqaaqayso buur aan ka fogeyn goobtu. waxa ay sheegeen in habeenkii uu arrinkani dhacay ee ay hawsha hakiyeen maalinimadiisiina uu yimid suldaanku nuuraddiin zinki oo labadii nin ay hortiisa ka qirteen dhagartan foosha xun ee ay niyeysteen. dadkii reer madiina oo afkala qaad ku dhacayna ay dhegaysanayaan ayaa qiiro iyo farxad isbarkan la ooyey. waxa uu ku farxay sida uu alle subxaanahu wa tacaala ugu karaameeyey in uu qabrigii nebi maxamed ka difaaco labadan dhagarqabe ee doonayey in ay meydkiisa daahirka ah qaataan. waxa uu la qiirooday sida ay riyadiisu u rumowday iyo taladii fiicnayd ee uu wasiirkiisa koowaad siiyey. waxa uu ooyey oohin la aamusiin kari waayey. waxa uu ka xumaaday in isaga oo muslimiinta hoggaankooda haya inuu qabrigii nebigu dayacaa dareemay. nuuraddiin zinki waxa uu amar ku bixiyey in labadii nin la dilo. kadib waxa uu keenay shaqaale xoog badan. markaasaa inta god aad u weyn lagu wareejiyey qolka uu ku dhex yaallo qabriga nebigu waxaa lagu shubay naxaas aad u badan oo la dhalaaliyey, taasi oo ka hortegaysa in cid kasta oo meel fog ka soo qoday dhulka hoostiisu ay soo gaadho qabriga nebiga sallallahu calayhi wasallam. nuuraddiin zinki labada tallaabo kuma uu joogsan ee waxa uu markiiba soo saaray amar guud oo saamaynaya intii ay dowladdiisu ka talinaysid, kaas oo dhigaya in kiristaanka la daciifiyo iyo in muslimiintu aanay shaqo u diran karin ruuxaan muslim ahayn. intaas haddii aynu kaga soo gudubno iskudaygii saddexaad ee la doonayey in lagula soo baxo meydkii nebi maxamed, haynu u gudubno iskudaygii afraad. qisadan la yaabka leh oo ah iskudaygii afraad uguna dambeeyey waxaa ka warramaya caalimkii dhulmareenka ahaa ibnu jubayr abu alxuseyn maxamed oo muslimka ahaa. waxa uu ku qoray kitaabkiisa rixlatuhu bogogga 4 ilaa 5. waxaanuu yidhi: annaga oo xajka u jeedna ayaa bishii dulqicda aanu ka soo ambabaxnay magaalada iskandariya ee dalka masar. markii aanu magaalada madiina waxyar ku sugnayn ayaa waxaa magaaladii madiina naloogu keenay dad maxaabiis dagaal ah oo laga keenay ciidamadii romaaniyiinta. markiiba waxaa xiise gaar ah noo yeelatay qaabka raggan loo waday. inta awr la soo saaray ayaa mid kasta loo jeediyey qaarka dambe ee awrka, halkii ay ahayd in uu hore iyo dhinaca uu awrku u jeedo in uu qofkuna u jeedsado. waxaana lala hareera socday dad garaacaya durbaano, turumbooyinna afuufaya. annaga oo yaaban ayaannu dadkii ka waraysannay qisada dadkan. kadib waxay nooga warrameen arrin beerku argagax iyo naxdin nala xanuunay. ibnu jubayr oo geeriyooday sannadkii 614 hijriyada ayaa isaga oo ka warramaya qisadan ka nixisay ee ay dadku ugu sheegeen maxaabiistan madiina loogu keenay waxa uu buuggiisa rixlatuhu ee uu kaga warramayo safarradii uu galay intii uu noolaa iyo qisaskii uu la kulmay. waxa uu ku yidhi: koox ka mid ah kiristaankii degganaa gobolka shaam ee romaaniyiinta ahaa ayaa inta ay isu yimaadeen waxa ay isu abaabuleen koox budhcadbadeed noqota. waxa ay samaysteen maraakiib ay badda ku galaan. maraakiibtaas oo markii ay samaynayeen qalabkii ay ka samaynayeen ay ku soo rarteen awr ay ka soo kiraysteen carabtii dhulka la degganayd. kooxdan romaaniyiinta ah oo kaashanaya koox ahayd carab muslimiin ahaan jirtay oo diinta dib uga noqday, markii ay dhammaysteen dhismihii maraakiibta waxa ay geliyeen badda. waxaanay bilaabeen in ay dhacaan maraakiibta iyo doonyaha siday dadka muslimiinta ah ee doonayey inay xajka tagaan. waxaana la sheegaa inay dadkaas muslimiinta ah ka gubeen ilaa 15 markab. intaas kuma ay koobnaane waxa ay u soo gudbeen maraakiibtii kale ee muslimiintu lahayd ee xamuulka ahaa, gaar ahaan kuwii ganacsiga ahaa. sidoo kale inta ay berriga u soo degeen ayaa ay bilaabeen in ay dhacaan safarrada oo ay dilaan dadka wata, iyaga oo sidoo kalena gubi jiray raashinka safarrada ganacsigu sitaan ee loo waday dhinaca iyo maka iyo madiina. kooxdan budhcadda ahi waxa ay awoodaysteen oo ay gaadheen heer aanay abid gaadhin romaaniyiintii gobolka shaam ku noolayd. sidoo kale waxa ay ku kaceen falal aad u foolxun oo intii islaamku jiray aan hore u dhicin in cidi kula soo badheedho. kooxdan kiristaanka ahayd markii ay cududoodii hubsadeen waxa ay isku qanciyeen in haatan aanay gobolka ka jirin awood ciidan oo ka hor iman karta, sidaas awgeed ay fulin karaan howlgal kasta oo kale
oo ay doonaan. waxa ay istuseen in ay ku duulaan magaalada barakaysan ee Madiina, kadibna inta ay soo faqaan qabrigii nebiga sallallahu alayhi wasallam ay la soo baxaan meydkiisa daahirka ah. kooxdan qorshaheedu waxa uu ahaa in ay meydka nebiga dib ugu aasaan meel ka mid ah dhulka kiristaanka ee gobolka Shaam, gaar ahaan deegaanada ay ku xoog badan yihiin. kadibna qabrigiisa inta ay dhisaan ay ka raadiyaan ganacsi oo dadka muslimiinta ah ee doonaya in ay siyaartaan qabriga nebiga iyo xataa kuwa aan muslimka ahayn ee dalxiisayaasha ah ay ka qaadaan lacag ay qabriga ku soo daawadaan. waxay ahaayeen niman awooddooda ku kalsoon oo aan cidna waxba isaga tirinaynin, waxaana garab siinayay kuwo iyagu carab muslimiin ahaan jirtay ahaa laakiin diinta dib ugu noqday. waxa ay bilaabeen in ay faafiyaan damacooda ah in ay weeraraan qabriga nebiga sallallahu alayhi wasallam si ay dadka muslimiinta ah ee markaa ka agdhowaa oo aan awood badan lahayn u niyad jabaan. ayaa ay warkii meel kasta ka rideen, laakiin iimaanka ka maqan awgeed waxaa seegtay in ay fahmaan in qabrigani uu leeyahay xasaanad rabbaani ah oo alle subxaanahu watacaala ku dhowrayo. waxa aanay dib u akhriyin taariikhda iyo sida mucjisada ah ee qabrigani hortoodba gacmaha aan daahirka ahayn uga badbaadiyey. warkii haddaba markii uu aad u faafay, waxaa markiiba la gaadhsiiyey halyeygii weynaa ee muslimiinta, hogaamiyihii caanka ahaa salaaxudiin al ayuubi oo xilligaas ku sugnaa dalka Masar. laakiin markii dambe dowladdiisu ay aad u ballaaratay kana talisay dhul ku siman dalalka Ciraaq, Syria, Masar, Yaman, qaybo ka mid ah waqooyiga Afrika iyo dhulka Xijaas ee ay ka mid yihiin magaalooyinka barakaysan ee Makka iyo Madiina. salaaxudiin al ayuubi oo israahaan ka soo jeeday kurdiyiinta Ciraaq waxa uu markiiba abaabulay ciidan aad u xoogan oo ka hortaga nimanka awoodda isbaday ee qabriga nebiga duulaanka ku soo ahaa ee soo beegsanayay. waxaanu ciidankaas madax uga dhigay hogaamiye geesinimo caan ku ahaa oo la odhan jiray alxaajib, balse caan ku ahaa lu'lu oo isagu dhalasho ahaan ka soo jeeday Roomaaniyiinta ay ka soo jeedeen isla kooxdan kiristaanka ah ee soo weeraray qabriga dahiran ee nebiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam. burcadii isbahaysatay kama ay warqabin in jawaab culusi uga soo socoto dhinaca iyo salaaxudiin, waxaanay ciidamadoodii u soo dhaqaajiyeen dhinaca Madiina si ay u fuliyaan qorshahooda ay doonayeen inay ku soo faqaan qabriga rasuulka sallallahu alayhi wasallam meydkiisana qaataan. ciidamadii uu salaaxudiin soo diray waxa ay kooxdii weerarka ku ahayd qabriga nebiga soo gaadheen xilli ay geedi maalin keliya ah u jireen Madiina. waxa aanay hubiyeen dagaal aad u qadhaadh oo aanay iska filaynin. ciidankii muslimiinta ahaa waxay nimankii Roomaaniyiinta iyo carabta ridowday ee isbahaysanayay ka dhigeen wax ay dileen iyo in ay maxaabiis dagaal ahaan soo qabteen. waana maxaabiistaas oo inta awr la soo saaray dib loo jeediyey. sidaas ayaanu alle mar kale ku badbaadiyey qabriga nebigiisii Muxamed sallallahu alayhi wasallam ee ugu dambeeyey ergada iyo ambiyadii uu alle u soo diray addoomaha. halkaas ayaynu saaxiibayaal ku soo gebagabayn doonnaa labadii qaybood ee aynu ku qaadaa dhignay afartii isku day ee la doonayey in lagu soo faqo qabriga rasuulka sallallahu alayhi wasallam si meydkiisa loo qaato, kuwaasi oo dhammaantood alla subxaanahu watacaala ka badbaadiyey gacmihii dhagarqabayaashii soo qorsheeyey falalkaasi. tan iyo mawduuc kale intaynu ku kulmi doonno saaxiibayaal, ha ilaawina in aad muuqaalada like saartaan, sidoo kalena ka mid noqotaan bahda qaamuus idinka oo subscribe saaraya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.